runta markaa inii sheego waxaa hadda xamar ka socda waxaan ka baqayaa inuu dagaal sokeeyo oo hor leh iyo qax hor leh dadku yaa doonaya in muqdisho qalalaaso dagaal gasho bulshada ayaa badanaa ku jaha wareersan cidda sida rasmiga ah uga dambaysa qalalaasaha iyo buuqa la rabo inuu muqdisho ka dhaco ee maalmahan soo cusboonaaday waa ayo cidda gudaha gadaashiisa ku jirta ee gowska dambe ka qoslaysa haddii ay dagaallo ka dhacaan magaalada muqdisho oo ay dani uga jirto haddaba aan laba u kala qaadno kuwa lacaga ku bixinaya iyo kuwa la adeegsanayo madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa shakhsiga hogaaminaya duulaanka in muqdisho ay noqoto furin dagaal oo dib ugu noqoto sanadkii 1994 oo ay dagaal ka dhaceen waxa uu dhowr jeer oo hore uu sheegay in magaalada qabiilka degan ay hurdaan taasi oo ula jeedo kicin iyo abaabul qabiil hadalkaasi ayaa dad badan u dareemeen inuu dana gaar ah ka lahaa inkastoo ay jiraan siyaasiyiin la fulinayo qorshaha Dani uu maleegayo waa tagay 8 markii dhaafay oo maalin loo iska maqanto shaqadii iska socoto soo waay waa wada haye 8 maxaa dhacay waxa ma dhicin haye sideed waa u jeedaa inay waxba dhicin ama nimanka ragga hurdaano markuu sidoodii ka caamaayro gidaarada ka daata xayaab kale habeenkii markii waxa dhacay shalay baan soo waay hadii ay tirada nimanka hawe gidaarada ka soo laa wax soo daatay ma aragtay waxay ma arag ciidamadan oo dabaabaadka wadana ma ogeynay Dani waxa uu lacago ka soo qaaday dawladda Kenya si loogu holciyo Muqdisho ugana dhaco dagaal sokeeye oo sababa in meesha gabi ahaanba ay ka baxdo nidaamka dawladeed si ay u qaadato dawladda Kenya doorkeedii ahaa inay Soomaaliya mar kale u hadasho waxa intaas dheer lacagaha NGO-yada UN ka tahay lacagaha kale oo European Union ka tahay lacagaha kale oo adduunka ka yimaada kulligood waxa lagu maamulaa Nairobi waxa ka shaqeeya Kenya ta ka shaqeeya dadka jooga oo ajnabiga ah guriga ka degan hotel ka degan guriga ka gataan marka lacag aad u far badan dhaqaale aad u far badan ya Kenya ku socday intay Soomaaliya burbursanayd dhanka siyaasadda Soomaaliya waa ka maqnayd saxada marka waa in loo hadlo Kenya waxay ahayd wadamada u hadlaya Soomaaliya haddii ay noqoto qaybteedana qaadanaya haday hesho qalalaasaha madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani uu rabo inuu Muqdisho ka dhaco waa mid salka ku haya muranka badda ee Kenya ku hayso badda Soomaaliya taasoo haddii culaysku sii xoogaysto Soomaaliya la rabo in looga ergeeyo in culayska laga yareeyo dawladda iyaduna ogolaato in arrinta badda Soomaaliya ee dhamaatay dib loo furo laguna wada hadlo miiska dushiisa si diblomaasiyadeed hadda oo waqtigii dhamaaday oo aan sugayno maxkamadda inay soo goyso go'aan yaan loo imaanay wax leeyahay ma ka soo celin kartaa ma ka soo celin kartaan dacwadii يا دولة قار كليه كسر عليه بالعقد حماس فيه وهذا أو أنت عن صوت كيسني أفر سنة صوت كيسني يو أنت خرج نربحي يو كي واحد سميسي أو كراستي بنيسي أو كيس كي لقى لقوا مدعي أو لو يهدني لما يستين هاوشي وأنسوي إن بلها صوص على القرآن إن نحلو يا والله صوع حلولي هاي بدعي كرتها إن si culayska la kaga dajiyo ma ka soo celin kartaan war kama soo celin karno mana ka soo celinayno su'aashu waxay tahay dadka reer Muqdisho ma ku baraarugsan yihiin dhagarta cadawga gudaha iyo dibadda ee qaarkood gacal iyo sokeeye isaga dhigaya si dano siyaasadeed oo raqiis ah ay u gaaraan